hal qiso baan anigu rabaa inaan idiin sheego idinla sheergareeyo oo runtii qisaskana soo maray ah. waxaa jiray nin muslima oo dadka wadankan u dhashay ah oo gabar Soomaaliya guursaday. runtii way isku fiicnaayeen iyagoo aad isugu wanaagsan. yani waxaan ku tusi culture-ku siduu u kala fog yahay. ninkani mar dhow buu soo islaamay, diinta oo dhanba wuxuu hadduu soo galay, wuxuuna maqlay 4 dumar la guursadaa, diintana ogol, intaasayba hawsha u joogtaa. marka gabadhii Soomaaliyeed baa wuxuu ku yiri walaal maanta qada noo diyaari. qadadii bay gabadhii diyaarisay, gurigiiba habaysay, qada la kariyay. wuxuu yimid baa la yiri isagoo wata wadaad kale iyo 2 nin oo maartay la socda iyo maartay gabar. marka waa maxay reerkii markii martaqaadkii iyo cuntadii la cunay ayaa waxa la yiri tiri gabadha waa muxuu yahay ninka haw gabadhan iyo nimankani waa maxay? wuxuu yiri waa la ii meherinayaa oo gabadhan aniga wata. marka gabadhii cirkaas ku dhacday, maxaad ka wadaa? waay sidee hawshan u jirtaa? wuxuu yiri sister, are you kafir? magaal baa tahay adu? intaas ugu jawaabay gabaray walaalay magaal baa tahay adu. marka halkaasay buu joogtaaba badee gaalkan ogolayn in la isla guursaday haddaad muslim tahay maxaabad marka nin tacliimtiisii intaa u joogto oo laga yaabo islaamkaba inay halkaa u taagan yahay, markaad berri adigu tira qoorta la gasho haddee howlo badan baa iskaga hor imaanaysa. marka wiilkaaga Soomaaliyeed wax idiin dhaama anu garan maayo. jazakumullahu khayr wa barakallahu fiikum.